السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو دوادا walaalaha qaaliga meel kasta oo joogtaan kuna soo dhawaada casharkeena muuqaal qurxinta. Hore waxaan u soo baranay casharo la xiriira muuqaal qurxinta. Casharkan maanta waxaan ku baran doonaa sida loo isticmaalo transition. Transition macnihiisu waxa weeye kala gudbin. Transition markii aad isticmaalayso waa marka laba muuqaal aad isku kabtay ama laba muuqaal aad kala jartay. Haddaba casharkeena maanta ayaan ku gali doonaa ee ku soo dhawaada. ugu horeyntii waxaan soo dhigaynaa halkan transition waxaan ku sameyn lahayn. Hore waxaan u soo isticmaalay qaybtan lagu magacaabo annotation. Maanta waxaan ugu doonaa qaybtan transition. Fadlan haddii aad casharada soo daawan ku laabo oo soo daawo. Maxaa yeelay casharadu isku xiran yihiin. Haddii aad casharka hore aqoon aad u lahayn kana kugu adkaan doonaa casharadan waa silsilad saaxiibka qaaliga ah. Halkan waxaan soo dhigan doonaa timeline-ka ah wixii aan ku sameyn lahayn transition. haddii hadda transition aan furo halkan ku qoran tahay tab waa inaad ka dhigataa all. haddii saa ay ku tahay kulligood ma arkaysid balse waa inaad ka dhigataa all saad u aragto dhammaantood. transition kuwan baa lagu isticmaalaa. transition waxay ku shaqeeyaan muuqaalada marka la kala jaro ama muuqaalada in hore laga geliyo ama sawirada balse meel cidla ku shaqeyn maayaan. haddii aan soo jeedo halkan dhigo ma shaqeynayo maxaa yeelay transition wuxuu u baahan yahay wax uu dhex galo waa sifo oo kale meel cidla ma istaagi karo. wuxuu u baahan yahay wax uu dhex galo oo lagu daro. waxaan ku shaqeynayaa muuqaalada iyo sawirada. ugu horeyntii waxaan soo gashan doonaa laba muuqaal. halkan ayaan soo dhigayaa timeline-ka ah. muuqaalna waa kan, muuqaalna waa kan. hadda labada muuqaal meesha u dhaxaysa ayaa waxaan doonayaa hadda saas ay kala gudbiyaan. halka ayaa soo dhigaya transition-ka. transition-ka waxaa la geliyaa halkan ama halkan ama muuqaalka hortiisa ama gadaashiisa ama labada muuqaal dhexdooda. waxaan furayaa transition. halkan waxaan ka dhiganayaa all. kan u horeeya ayaan tijaabinayaa. waan soo jeedaya anoo haya right halkan dhexda ku sii deynayaa. soo kala wareego bal aan fiirino. haye ka ku xiga aan tijaabino. hoos baan u soconaynaa kana aan tijaabino. mid kale aan tijaabino. markii hore muuqaaladu say ahaayeen waad aragtaa haddana saasay noqdeen. haye hadda waxaan geliyay meesha dhexda ah. haddii aan doonay inaan horey ka geliyo muuqaalka kale tusaale markuu bilaabanayo kale hadda saas ku bilaabanayaa. kan baan soo jeedayaa hore baan ka gelinayaa. soo ku bilaabanaya fiirso. markuu dhammaanayana waan gelinayaa. haddaba saaxiibka qaaliga ah waad baratay qaabka loo isticmaalo transition. haddii aad doonayso inaad dheerayso transition aad dheerayso halkaa ayaad qabanaysaa saas u dheereynaysaa. hadda daawo waan dheereeyay transition-kii tartiib ayuu soo gelayaa. haddii kan uu yar yahay transition-ka uu yar yahay oo wax aan la qaban karin aan falaarto aysan qaban karin oo saa noqonayso waxaad sameynaysaa halkan ayaa muuqaalka dheereynaysaa. saa markuu muuqaalka ugu dheeraado transition-kii waad arkaysaa markaas oo wakaas saas u qabanaysaa. falaarta saa noqoto ayaa radka qabanaysaa saas u jiidaysaa. markale kugu soo celiyo halkan waxaan soo dhiganayaa laba muuqaal. hadda waxaan ku tijaabinayaa bahaladii hore aan usoo dhigan oo kale. markay soo galayaan saas u kala boodayaan. waxaan soo dhexgelinayaa transition. horeyna waan ka dhigayaa.
gadaalna waan ka dhigayaa. saas ku soo gashay dhexdana fiiri gadaalna waxaan filayaa saaxiibka qiimiga badanow in aad fahantay casharkii aan ku sharaxinay transition. mara ku xigtana kan ayaan sharaxi doonaa iyo wax uu qabto. waxaan kaga tagay saaxiibka qiimiga badanow waqtigaaga waa si safety oo kale, haddii aadan goynin asagaa ku goynahaya. fadlan subscribe saar haddii aad ka hesho, aad baan kaaga mahad celin doonaa daawashadaada.